Tobankii sano ee ugu dambeysay Daacishka Soomaaliya waxay ahayd urur adag oo weeraro kala duwan ka geysta geyiga Soomaalida. Waxayse aad ugu xooganaayeen muddadaasi buuraha Galgala iyo Goolis, halkaas oo ah goobta uu ku yagleelay hogaamiyahooda Cabduqaadir Muumin. Cabduqaadir Muumin oo deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland ayaa hore uga mid ahaa kooxda Al-Shabaab, waxaase khilaaf 2015 soo kala dhexgalay isaga iyo kooxdaasi uu xiriir la sameeyay hogaamiyaha kooxda ISIS ee Ciraaq, Abubakar al-Baghdadi, si uu abuuro garab jihaadi ah oo ay kooxdu ku yeelato Soomaaliya. Waxaana gabaad ahaan uu ka dhigtay deegaanada uu ka soo jeedo, gaar ahaan dhulka buuraha ee gobolka Bari. Ilaa laga soo gaaro bishan koowaad ee sanadkan curdunka ah, waxa ay kooxdu gudaha Puntland ku lahayd saameyn aad u ballaaran. Wuxuuse waqtigan u muuqdaa inuu soo idlaanayo waayahoodii dhumaaleysiga buuraha Galgala. Weeraradii ugu dambeeyay ee ciidamada Puntland ay ku qaadeen fariisimada Daacish ee buuraha Galgala waxay ciidamada Puntland soo hoyeen guulo la taaban karo, waxaana kooxda laga saaray goobo kala duwan oo gabaad u ahaa. Puntland ayaa ciidamo gaar ah oo qalabkooda loo dhameystiray u qorsheysay inay kula dagaalanto Daacish, waxaana qaabka ay ilaa iminka u wajahayso dagaalka uu bidhaaminayaa mid ay ku dheehan tahay awood. Howlgallada ka dhanka ah Daacish ay Puntland wado waxaa sidoo kale lagu soo qabtay xubno ka tirsan kooxda, halka kuwo kalena lagu dilay. Waxaana xusid mudan in howlgalkan lagu ogaaday in Daacishka Soomaaliya ay dalka soo gelisay xubno badan oo ajaanib ah oo ka garab dagaalama, kuwa oo macluumaad badan oo ku saabsan xogahooda iyo dalalka ay ka soo jeedaanba la helay. Weerarada lugta iyo kuwa dhanka cirka ay iska kaashanayaan ciidamada Puntland iyo saaxiibada Soomaaliya ayaa kooxda ku qasbay in waqtigan ay faaruujiyaan 60% dhulka buuraleyda gobolka Bari ay kaga sugnaayeen, waxaana goobahaasi lagu arkay togag dhaadheer oo ay kooxdu halkaasi ka qoteen. Howlgalkan ayay Puntland qaaday kadib walaaca joogtada ah ee ka soo gaaray muddooyinkii ugu dambeeyay ganacsatada deegaanadaasi, kuwaas oo lacaga baada siin jiray kooxda Daacish. Waxaana jirtay in sanado badan ganacsatada Puntland ay u lug xirnaayeen kooxda Daacish oo fariimahan dadaada u diri jiray ganacsatada lacagaha baada aanan bixin, halka kuwa badanna ay khaarijeen. Howlgalkan inta uu socday, Puntland ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 9 diyaaradood oo nooca loo yaqaan droonta. Diyaaradahan ayaa isugu jira kuwa wax basaasa iyo qaar ay ku rakiban yihiin qaraxyo una diyaaray inay isqarxiyaan, kuwa oo ay leeyihiin kooxda Daacish. 4 sano ka hor bishii November sanadkii 2021 ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigtay diyaarado noocan oo kale ah, kuwa uu u soo degay xilligaasi nin xildhibaan ahaa. Waxaase diyaaradahan oo gaarayay 6 xabo, isla markaana ay sameysay shirkad Shiineys ah ay sirdoonka dowladda waqtigaasi ogaadeen inay dalbadeen Daacish, balse xildhibaanka ayaa ku adkaystay inuu daroontan u keensaday waraabka dhulbeereed uu ku leeyahay deegaanada Puntland. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgalka Puntland ee ka dhanka Daacish ayaa bogaadisay, waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo arrintan si gaar ah uga hadlay uu tilmaamay inay tahay tallaabo ku dayasho mudan. Hase ahaatee, Puntland oo hadalka dowladda daba joogta ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya aanay ka helin wax garab ah, iyagoo dowladda ugu baaqay inay muujiyaan doorkooda ku aadan dagaalka. Balse hadalkooda kadib, ra'iisul wasaare Xamse ayaa cod dheer ku sheegay in Puntland loo fasaxay dhaqaalihii, isagoo maamulkaasi uga digay hadallada marin habaabinta ee lagu dafirayo taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe. Howlgalka ka dhanka Daacish ee Puntland qaaday ayaa lagu tilmaamayaa kii ugu xooganaa in muddo ah, waxaana weerarkan iminka socda la mid ah uu maamulku qaaday bishii Julaay sanadkii 2021, markaas oo Daacish laga saaray deegaano ay ka mid yihiin Dhaban Caddo, Hulcaanood, Togo iyo Cameyra oo ka tirsan buuraha Calmiskaad. Daacish oo hore ugu guuldareystay loolankii ay kula jirtay Al-Shabaab ee ku wajahnaa joogitaanka koonfurta Soomaaliya ayaa waqtigan u muuqata mid lumisay dhulkii buuraleyda gobolka Bari, taas oo ka dhigan in la joogo dhammaadka garabka Daacish ee Soomaaliya. Waxaana haddii ay arrintan suuro gashay ay noqonaysaa guul u soo hoyatay Puntland iyo hoggaankeeda Siciid Dani oo ah nin mustaqbal siyaasadeed oo fog leh.